kii taliya dabagale ee ka soo yeedhay magaranaysa nin horta inaan waa nasiib darro inaan ku soo hoyatay shacabka iyo dadweynaha iyo weliba dawladaba inaadan in taliya dabagale inaadan u soo hanjabo oo weliba ilaa habeen madow baa kula baxaya xildhibaan maxamed abiib taniyow anigu niyo arrinkaa horta aad iyo aad haddana waddan reer burcana waan ka xunnaa abiib kule runtii waa xildhibaan qaran oo xasaanad leh xildhibaan maanta la odhan karo waxaa tahay dee yacnaa waxaad ka shaqaynaysaa qaran dumis waa nasiib darro waana wax aada u xun mana aaminsanin in maanta la weydiiyo oo la dhaho waxaa tahay qaran baabi'is baa tahay waayo dee shalay waxaa kii booliska u doodayey ee ciidamada qaranka u doodayey ee lahaa mushaharka la kordhiyo halkani uu bartamaha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena rayga dadweynaha oo aan toddobaadkiiba hal mar ku soo dhex qaadano magaalada Burco haddaba saaxiibayaal maanta waxaan weydiin doonaa shacabweynaha magaalada Burco sida ay u arkaan hadal uu dhawaan sheegay xildhibaan maxamed abiib isla markaana uu sheegay inuu ku yiri taliye dabagale oo ah taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland haddaba shacabweynaha reer Burco sida ay u arkeen hadalkaasi xildhibaanku uu sheegay daawasho wanaagsan aad baan ku soo dhawaanay adigoo magacaaga ku bilaabaya magacaygu waa Jamal Salaam wala dhawahay waayahay jamaalow sidee ayaad u aragtaa hadalkii dhawaan ka soo yeedhay taliye dabagale oo runtii uu ku yiri xildhibaan abiib shaarku leeg ayaan ku xiri doonaa bismillaahir rahmaanir rahiim kulli runtii waxaan salaamayaa dhammaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland runtii ka Burco ahaan ama ka reer dadweyne ahaan anigu waxaan aaminsanahay abiib kulli runtii waa xildhibaan qaran oo xasaanad leh xildhibaan maanta la odhan karo waxaa tahay dee yacnaa waxaad ka shaqaynaysaa qaran dumis waa nasiib darro waana wax aada u xun mana aaminsanin in maanta la weydiiyo oo la dhaho waxaa tahay qaran baabi'is baa tahay waayo dee shalay waxaa kii booliska u doodayey ee ciidamada qaranka u doodayey ee lahaa mushaharka la kordhiyo markaa reer awdal waanu ku raaligelinaa ka Burco ahaan waxaanu leenahay runtii dee waa wax dee qaranka ku ceeba in maanta dee xildhibaanadii dalka iyaga wax ka go-ayeen in dee shaar dawladeed loogu hanjabo kulle runtii dabagale kulle runtii waa nin dee ehludiina laakiin waxaan leeyahay shaarka dawladda qarankana waa iska reer ururay baynu nahay dee inaa isugu hanjabo dadka xargayaana dee loo adeegsanin dee shaarka dawladda aad baad mahadsan aad baan ku soo dhawaanay adigoo magacaaga ku bilaabaya waan ku dhawahay barnaamijka waayahay waaya cabdishakuurow sideed u aragtaa hadalkii uu taliye dabagale ku yiri xildhibaan abiib kii taliya dabagale ee ka soo yeedhay magaranaysa nin horta inaan waa nasiib darro inaan ku soo hoyatay shacabka iyo dadweynaha iyo weliba dawladaba inaadan in taliya dabagale inaadan u soo hanjabo oo weliba ilaa habeen madow baa kula baxaya xildhibaan maxamed abiib taniyow anigu niyo arrinkaa horta aad iyo aad haddana waddan reer burcana waan ka xunnaa waxaana leenahay arrinkaa horta wax laga qabto taliya dabagale xildhibaan maxamed abiib oo keliya meel kaga muudhicine dee reer boorame iyo shacabweynihii reer Somaliland oo dhan ayuu inaar meel kaga dhaca taniyow waxaan leenahay inaan sharciga inaan hala mariyo arrinkaas وانا كحنا هاي نضل نقرب عنها هاي دي بقول كيف بقولنا أنا كحنا aad baan ku soo dhawaanay walaal adoo magacaaga ku bilaabaya wadhawahay walaal magacaygu Cabdi Khaalid Xaadi Yunis waayahay Cabdi Khaalid qow waxaad si toos ah ugu dhex jirnaa barnaamijka rayga dadweynaha ee ka baxaya magaalada Burco waayahay sideed u aragtaa hadalkii lagu yiri xildhibaan abiib walaal waan ku dhawahay barnaamijka hadalka xildhibaan abiib haddaan u soo noqdo dee hadalkaas wuxuu ahaa hadal qadafa magarat nin mas'uulana wuxuu ka hadla maaha shaar ka weyn baan koo xidho ama mid ku leeg baan koo xidho doona wax nin mas'uul oo xildhibaano bulsho soo doorto umada keentay in waxa lagu yiraahdo munaasib ma aha mana haboona xildhibaanada waxa la dhahay dee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa loo doortay ama waxa la dhahay dee halka loo geystay waxa weeye bulshada soo dooratay iyo bulshada Soomaaliland dee inuu turjumo waxa la dhahay codkoodii ay ku hadli lahaayeen ilaa Soomaaliba hadii halka soo istaagtay qayliso ma garanayso laga qurux badan yahay waxaan xildhibaanada u dooranay in waxa la dhahay dee aynu halka u geysanay waxa weeye in inaga inuu turjumaan marka waxa la waa qadaf mana haboona xildhibaan iyo maxaa la dhahay mas'uulba in waxaas oo kale lagu la dhaqmo aad baa maasanta aad baan ku soo dhawaanay magacaaga ku bilaabaya magacaygu waxa Maxamed Cabdi Xasan waayahay sideed u aragtaa hadalkii lagu yiri xildhibaan abiib wallahi hadal dii khaldan buu ahaa kowdhe dee ninkana waxa laga doortay goolkii maxaa ahaaday aqoonta Boorama marka ina hadalka lagu yiraahdo ma ahayn marka dawladdu waxaan leeyahay dub ha lagu noqdo aad baan ku soo dhawaanay magacaaga ku bilaabaya magacaygu waa Axmed Diidan waayahay Axmed oo soo aragtaa hadalkii taliye dabagale uu shalay ku yiri xildhibaan abiib waxaan ku xiri doonaa shaarku leeg dib waxaan arkaa hadal khalad ka rab waxaan waxaan hadalka dee hadal khalad way sababtay tahay tan kun xildhibaana dee hadalkan lagu dhahan maahayn shaarka yimid ka tan ku xirna maahayn sababtay tahay ninku wax xildhibaan dee dabagale waxaan ku leenahay waxaan ku oran lahaa ka rab waxaan ku oranaa
hadalkaaba ku noqo magacaa ku bilaabaya magacayga waa shaafi saay waan ku dhawaay waayahay shaaficiyow seed u aragtaa hadalkii uu yidhi taliya dabagale uu ku yidhi xildhibaan abiib wallaahi ni horta waxaas wax laga xumaaday ni aad iyo aad waayo dee arrin dee laga sugayey ma ahayn dee xukuumadda dhan waayo dee markaa raaligelin laga bixiyo weeyaan saa arrinkaas waxaan raaligelin baan uga fadhinaa haddaan reer burcanahay dee waa sidaas xildhibaan abiib maxaa leedahay ni horta waan xildhibaanka waan taageernaa waan wadanaa xildhibaanka aad baad mahadsan aad baan ku soo dhawaanada magacaa ku bilaabaya walaaloon dhawahay maxamed farxaan baa la dhahaa waayahay maxamedow siyaad u aragtaa hadalkii lagu yidhi xildhibaan abiib horta waa la khaldanaa in lagu idhahdana mahe nin weyn oo xildhibaan ah in lagu idhahdo shaarkaa weyn iyo shaarkaa yar iyo mid kuleeg baan ku xidhaynaa mid damba midda loo shaarka dee lasku carweyn ku tegi lahay midda loo rag way khaldan yihin ha khaldanaadaana way khaldan yihin haddana waxay ku khaldan yihin inay idhaho waan ku xidhaynaa mahe ninkuna waa xildhibaan meel dhan buu inoo matelaa beel dhan soomaad garan awdalna ninku waa ka soo jeedaa